Assalaamu calaykum kusoo dhawaada YouTube-ka Maareeye Channel. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa film comedy, romance iyo horror isugu jira oo la yiraahdo Spontaneous. Daabo hana cabsan. Mara waxay u muuqataa mid fasalka ku dhex caajistay. Waxay tuuraysaa qalinkeeda kadib markii ay soo qabsan rabtay. Gabadha ay horteeda fadhisa way qarxaysaa. Mara waxay sheegtay in gabadhu ay fiicneed, ayna caadi iska ahayd. Qof kasta fasalka orod ayuu uga soo baxay. Markii ayada laga reebo, labadoodu saaxiib dhab ah weligood ma aysan noqon. keliya isku galaas ayay ahaayeen. Dhammaan ardaydu waxay ahaayeen sida gabadhii dhimatay oo kale, balse mid ayaga ka mid ah ayaa gaar ka ahaa. Sida ardaydii ay banaanka ugu soo cararayeen, Tess waxay aragtay Mara oo horteeda taagan. Ayada ma rumaysan karto, balse kadib waxay aragtay Mara kabaheeda. Kooxdii dambi baaraha cadayma ayay fasalka ka dhex qaadayaan. Keliya iyaga waxay u maleeyaan in qaraxa uu saameeyay gabadha. Mara ayadu sidaa ayay tiri. Ayada iyo ardaydii ay isku galaaska ahaayeen waxaa loo taxaabay xarunta booliiska, waana la su'aalayaa. Mara waxa ay la kaftantay xafiisayaha booliiska, balse isagu wuxuu ogaaday caqligeeda. Markii xigtay ayagu waxay fursad u siiyeen in ay qabaysato. Mara ayadu waxay weydiisay in kabaheedu ay dib ugu soo celin doonaan ayada. Booliisku waxay ardaydii siiyeen dhar cusub, waxayna ku hayaan xarunta booliiska. Dylan ayaa faala ka bixiyay sida wax waliba ay u dhaceen, balse keliya Mara ayaa hadalkiisii ku qosashay. Hadalkoodii ugu dambeeyay waxa uu ku saabsanaa fikradahooda. Maxay waxani u dhacayaan? Markii mid ka mid ahayd gabdhaha ay weydiisay goorta ay halkani ka bixi doonaan, Mara waxa ay sheegtay in halkani ay ka bixi doonaan markii ayaga ay hubsadaan inuusan mar kale ku dhici doonin mid ayaga ka mid ah. Mara waalidiinteeda ayaa ayada ka soo kaxaynaya xarunta booliiska, waxayna u soo kaxaynayaan guriga. Markii ay yimaadeen, ayadu waxay u baxaysaa qolkeeda. Sigaar ayay daaratay, kadib qoraal ayaa qof u soo diray, wuxuuna ayada u sheegayaa inuu ka helay ayada. Ayaga qoraalkooda ayay sii wateen. Aaskii gabadha ayaa dhacay maalintii xigtay. Mara iyo Tess waxa ay daawanayaan gabadha aabaheeda oo sticker ka soo fujinaya gaarigiisa. Kadib ayagu waxa ay soo aadayaan dhanka Dalton Twins si ayagu ay uga qaataan mushroom. Tess waxa ay ku fakaraysaa inuu yahay fikrad aad u xun. Markii dambe ayagu waxa ay soo aadayaan maqaaxida kofeega. Mara ayadana waxay dhammaan mushroomkii ku shubaysaa koobka kafeega ay cabaysay. Labadoodu waxay saaxiibo ahaayeen ilaa iyo yaraantoodii, waxayna qorsheynayaan inay saaxiibo ahaan doonaan ilaa ay ka duqoobaan. Waxay si wada jir ah ugu noolaan jireen guri xeebta u dhow. Ayagu waxay ka hadlayaan waxyaabaha ku saabsan gabadhii dhimatay. Markii Dylan uu yimid waxa uu weydiiyey inuu ayaga ku soo biiro. Isagu waxa uu la haasaaway Mara. Ayadana waxay xaqiiqsatay in isagu uu ahaa wiilkii horay qoraalka ugu soo qoray ayada. Dylan waxa uu ayada u sheegayaa in noloshiisa uu ka fikirayo wixii dhacay iyo in hadda uu doonayo inuu si xur ah u noolaado. Mara way xanuunsatay sababtoo ah waxay isku badisay mushroomka, waxayna ku soo mandaqaysaa suuliga, halka Dylan uu ayada timaha u hayo. Ayada waxay bilowday inay sarqaanto, waxayna isagu u sheegaysaa wax kasta oo dhacay. Isagu waxa uu ku fakaray in arrintani ay fajac tahay. Ayada habeenkoo dhan way sarqaansaneed, isaguna waxa uu la joogay ayada. Ayagu waxay ka hadlayeen wax kasta oo ku saabsan wixii dhacay. Dylan waxa uu u kaxaynayaa ayada gurigeeda, wuxuuna ayada u sheegayaa inay waqti dambe socdaan. Tess waxa ay saaran tahay sariirta, ayadoo hadlaysa. Mara waxay sheegaysaa in ayadu aysan sii wadi doonin isticmaalka daroogada. Tess waxay ayadana oranaysaa maantoo idil ayaad oynaysay ee iska naso. Maalinta xigta waxaa jira ciyaar. Labadii gabdhood waxay imanayaan iskuulka. Ayagu waxay arkayaan in ardayda kale ay xusayaan gabadhii geeriyootay. Markii uu Dylan ayaga ku soo biiray, isagu waxa uu xaqiiqsanayaa in Mara ay xiran tahay nooca dharkii Carrie. Markii dambe labadooduba waxay ku sheekaysanayaan maktabadda, waxayna isaga weydiinaysaa siduu ayada ku jeclaaday isaga. Isaguna waxa uu ayada u sheegayaa inuu jaceylkeedii ku bilowday maalintii ugu horeysay uu arkay ayada. Maalinta ay gabadhu dhimatay, Mara waxay u sheegtay in dhammaantoodu ay isla sidani u dhiman doonaan ayaga. Isagu waxa uu go'aansaday inuu ayada ka dalbado inay joojiso waxa ay haatan ku hadlayso. Goobta ciyaaraha ayadu waxay sawiro ka qaadaysaa ciyaaryahanada, waxayna sheegaysaa inuu qof ku qarxi doono halkan. Isagu waxa uu ku qoslayaa ayada kaftankeeda. Kadib ayada waxay isagu u sheegaysaa goorta ay xaqiiqsatay inay jeceshahay isaga. Waqti fiican ayay wada qaateen. Intii lagu guda jiro goobta ciyaaraha, wax ayaa dhacaya. Qof kastana waxa uu cararayaa isagoo qaylinaya, sababtoo ah mid ka mid ah ciyaaryahanadii ayaa qarxay. Dylan Mara ayuu gacanta ka soo qabanayaa, banaanka ay u soo cararayaan, hab ayayna isa siinayaan. Magaalada waxaa ka soo baxaya warar muhiim ah oo cusub. Warbaahinta waxaa ku faafaysa musiibada dhacaysa. Tess iyo Mara waxay habeenka ka soo qaybgalayaan xuska, halka qof waliba uu xasuus u
dhigayo wiilkii dhintay. Maalinta xigta ayada waalidiinteedu waxay ku wargelinayaan in ayada iskuulkeeda gabi ahaanba la kansalay. Ayagu waxay ayada u sheegayaan in weli ay raadinayaan kuleej cusub. Sidaa daraadeed ayada intaa kadib waxa ay tiri wax kasta waa ay dhammaadeen. Mara waxa ay waalidiinteeda u sheegaysaa in sidii hore ay ka xun tahay hadda. Habeenka Dylan ayaa ayada u imaanaya si uu ayada ugu kaxeeyo gaariga ice creamka oo duug ah. Labadooduba waxa ay soo aadayaan xafladda iskuulka oo loo dhigayay xuska dhalinyaradii geeriyootay. Balse si dhaqsi leh ayagu banaanka ay soo aadayaan, waxayna ayagu iska tuurayaan sharaabkii ay cabayeen. Sababtoo ah ayagu waxa ay ku fakarayaan laga yaabay in sharaabka uu ku jiro alcohol. Ayagu waxa ay ku qoslayaan oo ay la yaabayaan waxa ku sababaya in dhalinyaradu ay qarxaan. Xoogaa yar kadib ayagu way istaagayaan, waxayna ka wada hadlayaan isaga aabihii, wayna isdhunkanayaan. Si kadis ah waxa ay maqlayaan qaylo ka soo yeeraysa guriga. Way soo eegayaan waxa dhacaya. Arday kale ayaa dhintay. Mara iyo Tess waxa ay la hadlayaan wakiilada Rosedi. Ayada ma oga waxa dhacaya. Rosedi waxay ayaga ka dalbanaysaa caawimaad, waxayna ayagu u sheegaysaa in ayada ay u keenaan wax un. Marka xigta Mara waxay aadaysaa guriga Dalton Twins, waxayna ayagu u sheegaysaa in wakiilada ay ka dalbatay inay u keento daroogooyin. Mara waxay ku fekeraysaa sababta ka dambaysa qaraxa in aysan ahayn daroogada, sababtoo ah booliisku waxa ay ku fekerayaan sida xaqiiqada ah in daroogooyinku ay sababaan qaraxa. Haddaba sida macquulka ah si ay u jeeggareeyaan, ayada waxay ayagu u sheegaysaa inay u soo iibin doonto wax waliba. Saddexdoodiiba gaari ay soo wada raacayaan, halka Dalton Twins ay qarsanayaan xashiishkooda. Ayagu waxay Mara u sheegayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan magaalada, waxayna ayada qoraal ugu sheegaysaa Dylan. Intii ayada ay fariinta u qorayso isaga, si kadis ah ayada walaalkeeda ayaa qarxaya. Walaashiina sida ugu dhaqsiyaha badan waxa ay ku boodaysaa fadhiga dirowalka, waxayna isku dayaysaa in gaadhiga ay wado. Markii ayadana ay sidoo kale qaraxdo, Dylan waxa uu soo helayaa gaarigii oo rogmaday, balse kama dhex helayo Mara. Sida ugu dhaqsiyaha badan waxa uu arkayaa gacan dhiiga oo ku sawiran dhagaxa, waxa uuna u soo baxayaa inuu ayada ka dhex raadiyo kaymaha. Dylan waxa uu helayaa ayada oo webiga ku dhaqanaysa, isaguna ayada ayuu habsiinayaa, isagoo oranaya waxaan u malaynayay inaad gaariga ku dhex geeriyootay. Isagu waxa uu ayada u keenayaa suud qurxoon, wuxuuna u yeeray Rosedi ka hor inta uusan isagu halkaa imaan. Si kadis ah isagu waxa uu arkayaa nin soo eegaya ayaga. Sida ugu dhaqsiyaha badan kuwa kale ayaa imanaya, waxayna labadooduba u kaxaynayaan hosbitaalka. Mara hosbitaalka ayay jiiftaa. Markii ay dhakhtaradu fiiriso ayadu waxa ay u sheegaysaa in ayagu ay caawimaad u baahan yihiin. Ayada way argagaxaysaa, balse waxay arkaysaa Dylan oo saaran sariirteeda sariirta xiga. Ayagu si wada jir ah ay u wada kaftamayaan, waa ay ku wareerayaan dhakhaatiirta. Habeenka Dylan waa uu soo toosayaa, waxa uuna ayada u sheegayaa wixii dhacay. Ayada waxay u soo dhawaanaysaa isaga, waxa ayna ayadu weydiinaysaa su'aalihii ay dhakhaatiirtu isaga weydiiyeen. Dowladdu waxa ay si dhab ah u karantiileen kooxdii galaaska oo idil. Madaxda dhakhtarada waxa ay su'aalaysaa ardayda. Ayada waxa ay weydiinaysaa waxa ku saabsan dhalinyarta qarxaysa siday u arkaan iyo dareenkooda sida uu yahay. Sidoo kale waxa ayaga ay doonayaan in ay ku dhex sameeyaan koleejka. Mara waxay uga jawaabaysaa in ayada kaliya ay doonayso in ay sii noolaato. Habeenka Mara iyo Tess waxa ay ka wada hadlayaan sanduuqooda. Tess waxa ay ka walwalaysaa in berito ay wax dhici doonaan, waxa ayna Mara u ballan qaadaysaa in aysan dhici doonin wax halis ah. Ayadu waxa ay sheegaysaa in haddii Mara ay baxdo in ayaduna ay bixi doonto. Maalinta xigta galaaska madadaalo ayaa ka socda. Mara waxay ka cawanaysaa in ayadu ay ku caajistay, waxayna oranaysaa waa in halkan aynu ka baxnaa, balse qofna ma doonayo in halkan uu ka baxsado. Sidaa daraadeed ayagu waxa ay bilaabayaan in ay ka wada hadlaan qaraxyada. Laba qof waxa ay ku doodayaan in qaraxa uu yahay habaar iyo in kale. Dylan waxa uu la wadaagayaa fikrad doqonnimo ah, qof walibana waxa uu ku jeesjeesayaa isaga. Goor dambe dowladda rasmiga ah waxa ay dhalinyarta tusayaan presentation awood badan, waxayna u soo bandhigayaan in ayagu ay ka wada jawaabaan dhammaan su'aalahooda. Mara ma aysan fahmin waxa ay dowladdu dhab ahaantii samaynayaan si ay u caawiyaan iyaga, wayna ku shactiraysanaysaa isaga. Mudanihii waxa uu ka xayirayaa jawaabaha, ardaydiina way ku qoslayaan isaga, balse isagu si dhaqsi leh ayuu uga caroonayaa. Mid ayaga ka mid ah ayaa qarxaya, kadib mid kale ayaa qarxaya markii ay hurdayaan. Xarunta tijaabooyin ayaa lagu samaynayaa. Waalidiinta ardayda waxa ay ku sugayaan banaanka xarunta. Dhakhtarku banaanka ayuu imanayaa si uu mid ka mid ah lamaanayaasha ugu sheego waxa ku dhacay canugooda. Ardaydu way sii dhimanayaan.
jiraan. Dhammaan tijaabooyinka iyo daroogooyinkii ay sameeyeen waa ay ku fashilmeen. Dhammaantooda waxay isku dayayaan in ay u noolaadaan si dabiici ah intii ay gudaha xerada ku jiraan, balse midba midka kale dhalinyartii waa ay sii qarxayaan. Xitaa dhaqaatiirtii ka shaqaynaysay xarunta nasiino la'aan ayaa ku dhacday. Kaniiniga buluuga ah oo ay dhaqaatiirtu soo saareen waxa uu la muuqday in uu yahay mid shaqaynaya. Qof kasta oo xarunta ku jiray waa uu ku farxay arrinta, waxaana dhalinyartii laga sii daayay xarunta. Waalidiintooda ayaana u yimid. Mara hooyadeed iyo aabaheed waxay u soo kaxeeyeen guriga. Markii ay aragtay in ciida Christmaska uusan ka jirin magaalada, ayada aabaheed waxa uu sheegay inuusan qofna dareemin ciida, balse markii ay guriga yimaadeen ayaga waxay surprise uga dhigeen geed. Markii dambe saddexdoodiiba waa ay sharxeen geedka. Markii dambe ayada aabaheed waxa uu sheegay in ayadu ay dhibaato ku sugan tahay, uuna u daran yahay cabidda sigaarka, sidoo kale isticmaalka daroogada. Dhammaantooda si wadajir ah ay u dabaaldegeen, waxayna ka wada hadleen qaangaaridda gabadhooda. Ka hor inta aysan seexan, Mara waxay qaadanaysaa xabad kaniiniga buluuga ah. Maalinta xigta Dylan waxa uu joogaa ayada gurigeeda. Si wadajir ah ay u seexanayaan markoodii ugu horeysay. Mara waxay isagu weydiinaysaa in ay badbaadayaan ayaga. Dylan waxa uu oranayaa anigu waxba kama ogi, balse maalin aynu iskuulka u laaban doonaa. Ayadu ma doonayso inay iskuulka u laabato. Ayaga galaaskooda waa isku mid. Mara iyo Tess waxay u wada socdaan iskuulka. Mid ka mid ah macallimiintooda waxa uu ayaga u sheegayaa qiso ku saabsan sida uu isaga ula muuqday qofka qarxaya markii uu isaga askariga ahaa. Isagu waxa uu ayaga u sheegayaa in ayaga uu u caawin doono si tartiib ah. Markii dambe Rosalie waxay Mara ka baaraysaa cadaadiska dhiiggeeda, waxayna ayagu ka wada hadlayaan magaca kaniiniga buluuga, waana snooze button. Mana jecla Mara. Rosalie kuma fikirayso in cudurka uu dhammaaday. Maalinta ciida Mara waxay sharxaad u samaynaysaa Dylan. Labadoodu waa ay isla ciyaarayaan. Isagu waxa uu ayada u sheegayaa in uu jecel yahay ayada. Way qoslayaan. Kadib Dylan waxa uu ayada u sheegayaa in samirka ay waqti isla qaadan doonaan ayaga haddii aysan dhiman. Tess iyo Mara casho ay miiska ku sugayaan, balse kabalyeeradu aad ay uga argagaxaysaa inay cunto u keento ayaga. Ayaga way ka tegayaan. Maalinta xigta dhakhtaradu waxa ay ku sugan tahay ayaga iskuulkooda, waxayna u sharxaysaa kaniiniga snooze button-ka. Ayada waxay dhahaysaa kaniiniga caafimaad ma ahan ee waa daawo. Dhakhtaradu waxa ay ka dalbanaysaa inuu soo istaago hal qof. Waxaa soo istaagaya mid ayaga ka mid ah. Sida ugu dhaqsiyaha badan markii uu wiil ku raaco ayada talaabadeeda, isagu waa uu qarxaya. Si kadis ah mid kale ayaa qarxaya, haddana mid saddexaad ayaa qarxaya. Dhammaantooda banaanka ay u soo cararayaan, balse dhalinyartu waa ay sii qarxayaan. Mara waxay la socotaa Dylan. Ma arkayso Tess buuqa jira awgii. Dhammaantoodu waa ay ordayaan, waxayna isku dayayaan in ay banaanka aadaan sidii ay u qarxayeen dhalinyartu. Mara gadaal ayay martay. Markii uu isku dayay arday ay isku galaas yihiin in uu caawiyo ayada, isagu xitaa waa uu qarxaya. Ayada waxay arkaysaa albaabka banaanka iskuulka ayna u soo baxaysaa. Dylan ayada ayuu kula kulmayaa banaanka, hab ayna isa siinayaan. Si kadis ah Dylan ayada horteeda ayuu ku qarxayaa. Mara waxay u soo lugaynaysaa guriga ayada oo dhiig badan uu ku halaysan yahay. Rosalie ayada ayay arkaysaa, waxayna ayada u qaadaysaa hosbitaalka. Baaritaan ayaa laga qaadayaa. Ayada hooyadeed waxa ay soo aadaysaa hosbitaalka, waxayna ka caawinaysaa in ayada ay u soo maydho. Habeenka ayadu waxay seexanaysaa waalidiinteeda dhexdooda. Ayadu xaqiiqa ahaan aad ay u niyad jabtay. Waxay iska joojinaysaa isticmaalka kaniiniyaasha, waxayna diidaysaa inay ka qayb gasho Dylan aaskiisa. Tess waxay isku dayaysaa in ay ayada ka soo saarto qolkeeda, balse Mara hadda waxa ay daawanaysaa fiidiyowyada Dylan. Habka kaliya ay ayada qolkeeda uga soo baxdo waa cabidda qamriga. Mara waxay aabaheeda ku oranaysaa dhammaan saaxiibadeydii waa ay dhinteen. Filimku waa uu dheeraaday. Ugu dambayn, like saar oo subscribe dheh si aan u soo badino muuqaalada caynkani ah. Mahadsanid.